marka hore magacaaga ku bilaab هاي marka maanta ka war dareenkaaga aad shuruurta aad u kaxsantaa maanta waa imtixaan sax bil ii socday sidee loo jajalo Soomal aajid karfaad ma ma taybaalkii u shaqeynayeen macquul ma qodana farkaaga wariye waayahay maxaa dalbanaysaa hadda waad ku qanacdaan marka imtixaankan siis loo socdo hadii imtixaankan ay galaan inoo diidaan afartanaad loo dhiman iyo adina atriyam sidaan baan ugu waay aad waa mahadsan waay aad waa mahadsan tahay wali waxa isku day doonaa qaar kamid ah ardayda dareenkooda inaan ogaano halka ay ku gaadiidka ay u diidaan gabi ahaan in laamiga ay isticmaalaan ha noqdaan gaadiidka dawladda ha noqdaan gaadiidka gaar loo leeyahay ardaydu waxa ay u yihiin in halkan ay isticmaalaan malaha dhagxaan ayay laamiga ku goynayaan sida u jeedaan gaadiidka waaweyn kuwa xamuulka ah kuwa kale dhammaan ayay u diidan yihiin in halkan ay isticmaalaan ardayda halkan ku soo هذا قد الشموميان قارئ إليه عيدك بوليسك أرضيه سوي جدا وقارئ بوليسك هذا أرضيه قد الخمسين ujeedaan halkan waa bartamaha laamiga haddana waxa ay soo dhigeen biro si aysan gaadiidku isticmaalin dhagxaan ayay soo tubeen ardaydu aad ayay u careysan yihiin waxaana ay doonayaan in ay ka laabato xukuumadda go'aankeedii ahaa in ay imtixaankii gebi ahaan baadiyso halkan waxaa ku sugan ciidamo iyo saraakiil oo ardayda isku dayay inay dejiyaan xaalkooda دولسن تي في أيوة اللي داون إنسان مثل من الأرضية الله هذا الدنيا مركن إنسان هو يدين درينتي مركوري ما عارف بالله مركوري ما يوسف جبريل عبد الله عكس الله عبد السلام كان يجي يسافر واحد
براو براو صاحب هذا ما صنفاي كمان عندنا أرضي ضمانتود درين جود أيام وجنايان جايز اللي بيحان هالكن الجديد سوي جدا هالكن وادل جدا دانسون لامي جدار إسقوط كجنب هذا إيه وحنا أدينا جبهان ضدكو جديد الجار يصيدوا كلكو دولة دبي استعمالها سوي جدا رجحان أي جبهان لامي كوجوين يتحفق ويسوى أروريان وين يا أورا يا عرف اسمه شريرة banaanbaxan xoogan ayaa mar qura saakito gilgilay magaalada iyo gudaheeda daafeeda intaba ka ku saabsan shalayto markii imtixaankii dhammaan ardayda Soomaaliyeed la shaaciyay lagu sheegay 7,000 oo arday ah oo gudaha Muqdisho oo kaliya inay ka dhacday arintaasi ayay ku saabsaneed oo banaanbaxaasi uu ku saleysan yahay ardaydii ayaa kaceen waxay dhaheen macquul ma noqonayso in 7,000 oo arday wax sahlan ma ahan waa arday dhan macnaha tiro aad u badan lambar aad u badan marka waxay leeyihiin waxaan ka cabanayna musuqmaasuq in nala musuqmaasuq nagu sameeyay oo maragtaa in waxyaalo kale ay meesha ka jiraan taasi ma wax suurtagalaya ay leeyihiin banaanbaxooda ay sameeyeen cabasho dawladda Soomaaliya iyo waxbarashada inteeda kale waxay codsanayaan in arintaasi dib loo fiiriyo macquul waxyaabaha yaab kale waxa kamid ay leeyihiin waxa natiijada soo baxday kamid arday af Soomaali ku dhacay oo haddana maadooyinka kale ku baasay taa ayay aan ku arkay baraha bulshada qayb kamid ah waayeel soo socodina wixii ka soo kordhay warbixinadaasi walow ay ku qanacsaneen in ardayda badankood qaar gobolada kamid ayaa leeyahay ayagana inay banaanbaxay sameeyaan sababtoo arday zaid ayaa leeyahay ayagana qaarkood way dhacday laakiin intaas oo dhan isku soo duub waxa ugu badan dhicitaanka marka leeyahay magaalada Muqdisho ee xarunta wadanka Soomaaliya warbixintaasi ayaan haatan idin soo jeedinaynay banaanbaxaasi ayaan idin socodsiinaynay janarkeena baxada weyn ee Dooxa Media ayaa si toos ah nagala socotaan waxa idin rajaynaynaa in barnaamijkaasi aad la socon doontaan halkan ayaan ku soo gabagabeynaa qodobadaasi